أحمد محمد حريد وويل dhalinyaro waxa uu ku fakaray inuu la yimaado fursad uu ku abooran karo shaqo wax ka bedesho noloshiisa aragtidiisa ayuu ka hirgeliyay isaga iyo saaxiibadiis jid yar oo dhex marta xaafad ku taala degmada Waabari isla markaana isticmaalaan gaadiidka dadweynaha sida tutugleeda ama bajaajta caqabad weyn ayaa halkan ka taagneed ka hor inta ay la iman fikradda dhalinyaradan u shaqeysa sida taraafikada maadaama ciriiri fara badan ay ka jirtay kaxayaasha gaadiidka halkan isticmaalana ay aad ugu baahanayeen cid kala maareysa ama kala celisa laanta ma bala mari karin way habeenkii oo daraantaa soo marna xataa marka habeenka jimcada oo kale jaamcada ma marna ciriiri oo kale aniga dhaxdeena buuqa iska sameeyana oo isku hormaan laakiin dhalinyartaan markay imaadaan wadada aadan oo furan ma sha Allah shaqa dawladda iska lahayd bayagu hayaan iska wax u qabsay wadaan anaguna waa caawinaa 2003 iyaga waa dhaqaaleynaa maxaan ku lahayn hawl muhiim ah noo hayaan saasay tahay hawshu way ka farabadan tahay iyaga meesha waxa mara 10 kun oo moota maalintii isku dhaaftay أحمد محمد حريد ayaa ii sheegay inuu fikirkan ku dhashay kadib markii uu arkay culays fara badan oo wadadan ka taagnay taas oo marar qaar dhalineysay inay gacan iskula tagaan asaasa keenay afar qof kala soo awaawilay koow kaliya taagnay haddana afar qof kala soo awaawilay sidoo kaliya ma qaban karin macnaha wadada way culusta macnaha wadooyinkana way yareeyeen waa arkaysaan oo maleena inay baawarka wadooyinka dhaaf karin dib ku yiin dhaqaale waa kalna kun 2 kun aan ka qaadana dhaqaale oo fiican oo macnaha maanta oo meel noo saaran ma ka qaadano laakiin miideen waa ka doonaa waa ka tagnaa marka miid ka amar qaataan amarka waa naga qaataan ma sha Allah amarka waa naga qaataan anaga soo keenay dibkan iyagoo meeshaan dib isku haysto oo baangaro isku dhufanayaan muraayo iska jibinayaan wadooyinkan way yariin hadda waa arkaysaa day gaariyaal weyn soo galaan dariiqooyinka ma isdhaaf karaan aan dawladdiina macnaha wadooyinka way ka soo celisay waa ogtiin dhaqaale fara badan kama macaashaan isaga saaxiibadiis kaliya markii laga reebo 2,000 oo shilin Soomaali ah oo ay wada bixin dhammaan gaadiidka jidkan isticmaala balse waxa ugu weyn oo ay ku joogan ayaa ah dhiirigelin iyo sida shaqada ay hayaan loogu qanacsan yahay dadka shacabka isticmaala wadadan ayaa sheegaya in dhalinyaradan ay hayaan shaqooyin laga rabay ciidamada ilaalada wadooyinka ee taraafikada loona baahan yahay in lagu dhiirigeliyo halkan hadii bajaaj laba bajaaj iska hormaato xataa mid saddexaad mid kale ma soo mari karto ayada dhanba oo isku xirmaysa ay isku xirmaysa waxay leedahay laba qofood oo midna uu ka taagan yahay afkan hore midna afkaas gadaal uu ka taagan yahay waxay sameeyaan marka way kala celiyaan kan xagga joojina kuwana socona kan xagga celina kuwana socona kaas xagga celina kan inta celina kuwana socona طبعا ماشاني وآد ياد الحمد لله وكنا سخبنا 24 ساعة وصومرنا هبينك حتى وصومراني دليلك آد وحبنتها وضدن مريتان كذا يسعد كذا مثلا واتنا مكواها داركسان إن لبدي بتشاش يسوي دارنا يعني مثلا محل هذا آد وقولي بيه إن إسكاجا كانوا بقدور شربن كوري وحسكوري أم بتولد هذيك كاجا شو هذا وضدا wadaha ayagsan ka sameystaan inta badan wadadaas jaan bay noqotay walaalo laakiin wadadani iyaga uu dheedahayo inta badan waa maraan markaste deganaanshaha deegaankan ayay ka qayb qaateen dhalinyaradan maadaama shaqada ay hayaan ay hakinayso buuqa badan iyo sahaasiga dhexmir jirtay dhalinyarada ka xisa gaadiidka bajaajta iyo kuwa kale ee dadweynaha sida uu ku waramayo deeq cabdi daahir warsame oo kamid ah dadka degan xaafadan dadka leeyahay waxa dhici lahaa maartay iskoor ciriiri iyo xanibaad iyo buuq badan iyo iskoorimaad xataa waxa la oran nabadda ka qayb qaadanaysa sidoo marar qaar shaqooyin halkan ka hayaan mislaadahay tii dawladda taraafikada rasmiga halkan ka hayaan absolutely waxaan booran karaa xaqiiqadii waxaan booran karaa waxa weeye shaqadii dawladda ee loo baahnaa bay bahayaan baan oran karaa sometimes gawaarida tutugleeda ama bajaajta waa gaadiidka u badan oo isticmaalaan shacabka Muqdisho dhalinyaro fara badan ayay u noqotay fursad shaqo abuur ah balse waxaa jirta wadooyin ay dawladdu ugu xanibtay dhan amni sida jidka hormarta madaxtooyada nidaamka ku jira isticmaalka jidka yar ma uusan sahlaneyn sanad ka hor balse dhalinyarada isxilqaantay waxay saaleen in si nidaam ah loo maro halkan iyagoo waxay noqotay fursad shaqo abuur ah si shilmaadka halkan ka helaan ay ugu maarayaan noloshooda haajir abdulqaadir warbaahinta SBC